rajadii laga qabay talaalka hortaga oo loo abuuray caabuqa HIV-ga ee sababa cudurka AIDS-ka ayaa lagu hungoobay kadib markii lagu guuldareystay tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee la sameeyay. Xarunta qaran ee caafimaadka ayaa joojisay tijaabadii ay ku magacowday HVTN-702 taasi oo lagu sameeyay in ka badan 500 oo ruux oo ku sugan waddanka Koonfurta Afrika maadaama la ogaaday in talaalkan uusan ka hortagi karin HIV-ga. Khubarada hawshaasi waday ayaa muujiyay niyad jab weyn, laakiin waxa ay sheegeen in la sii wadi doono cilmi baarista loogu jiro dawada ka hortagga HIV-ga. Dadaalkana waxa ay sheegeen in ay sii ambaqaadi doonaan talaalada noocaana ayaan lagu darin unugyo HIV ah, sidaa daraaddeed wax khatar ah uma keenayaan qofkii lagu tijaabiyo. in ka badan 5,000 oo qof oo ku nool waddanka Koonfurta Afrika oo kamid ah wadamada ugu badan ee cudurkan dilaaga ah uu saameeyay ayaana lagu tijaabiyay. Talaalkan ayaa nooc kamid ah talaaladii ugu horeeyay ee lagu hanweynaa inuu unugyada jirka bini'aadamka ka difaaci karo cudursidaha HIV-ga, waxaana horey loogu soo bandhigay xarun caafimaad oo ku taala waddanka Thailand. Talaalkan ayaa tijaabadiisa laga sameeyay waddanka Koonfur Afrika oo kamid ah dalalka ay ka jirto tirada ugu badan ee cudurkaas qabta. Marka loo eego caalamka intiisa kale, waxaa jiray hami weyn oo laga lahaa in talaalkaasi uu shaqeyn doono, waxaana lagu waday in marka lagu guuleysto loo sii gudbiyo wadamo kale oo dunida oo dadkooda cudurkan uu saameeyay. Khubarada caafimaadka ayaa aad uga niyad jabay natiijada talaalkii ay rajada weyn ka qabeen. dad si iskooda isu xilqaamay ayaa la siinayay talaalkan tijaabada ah. xogtii hordhaca ahayd ayaana muujisay in talaalkaasi uusan waxba ka tari karin shaqadii looga dan lahaa, taasi oo ahayd inuu awood u helo sidii uu u difaaci lahaa caabuqa HIV-ga. Dr. Antonio Fauci oo ka socda xarunta caafimaadka qaran ee NIH la yiraahdo waxa isagu uu yiri in talaal loo helo HIV-ga waxay sababi lahayd in dunida la farxad geliyo. annaguna waxaan rajo ka qabnay in dawadan tijaabada ku jirtay lagu guuleysan doono. waxaan se ka qoomameynaynaa inaysan waxba tirin. cilmi baaristu weli way socotaa, waxyaabo kale ayaana laga shaqeynayaa si loo sameeyo talaal badbaado u ah HIV-ga. ilaa haatana waxaan aaminsanahay in la heli doono, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Dr. Antonio Fauci oo ka socda xarunta caafimaadka qaran ee NIH. Linda Gail Becker oo ka tirsan hay'adda caalamiga ee AIDS-ka ayaa iyaduna ka hadashay arrintan, waxayna tiri inkastoo tani ay dhabarjab weyn ku tahay dadaalkeena, waan sii ambaqaadi doonaa raadinta talaalka hortaga. weli waxaan rajo ka qabnaa in talaalo kale ay u shaqeyn doonaan sidii aan rabnay, ayay tiri. dawo magaceeda afka qalaad loogu soo gaabiyo PrEP ayaa hadda shaqeynaysa, waxaana la ogaaday inay ka hortagi karto caabuqa HIV-ga, laakiin waxay ka duwan tahay talaalka. waxaana loo baahan yahay in maalin kasta qofku uu qaato dawadan PrEP la yiraahdo. nasiib darro dalal badan oo dunida ku yaal ayaysan weli soo gaarin dawada PrEP ee ka hortagaysa caabuqan HIV-ga oo ilaa hadda ah dawada kaliya ee looga hortagi karo cudurkan. dhowaan ayaa waxaa la helay dawooyin waqtiga u dheereyn kara dadka uu haleelo caabuqan HIV-ga, balse ma jirto dawo si rasmi ah u joojinaysa cudurkan. xanuunka HIV/AIDS ayaa la aaminsan yahay inuu dunidu ku sii baahayo marba marka ka dambeeyda, waxayna khubarada caafimaadku ay sheegayaan in ay muhiim tahay in lagu dadaalo sidii loo heli lahaa dawada cudurkan.